masalada ku saabsan wax diyaarinta hal mas'alo baan idin sheegay dee wax waa academic waa barateen sida wax loo diyaariyo iyo sida wax loo baxsiyo iyo adab al-bahth waa la idin dhigay laakiin midun baan idin sheegaya istikhfaaf uqul الناس walgaayay kugu dhicin bini aadamku inaan waxba garanayn hamoodin tamaaneedu waa maxay soo diyaar garow taad rabteen in bini aadam wax sheegto uquushooda ixtiraam wax walba dadka way ku jiraan qaar ka aqoon badan baa ku jira qaar ka waayelsan baa ku jira qaar ka tajribo badan baa ku jira marka meeshu maan buuxiyay hays oranay dadku waxay ka wahsadaan rag badan oo cilmi badan baa jira laakiin waxay ka wahsadaan in waqti ku bixiyo hal arka daris waqti aanu jeedinay sanawaad inaan qoraynay akhriskaagu ha bato haddaad rabto inaad wax sheegto waxaa ka horeeya in adigu aad dhaansantay wax akhriskaagu inuu bato wax akhriskaagu ha batee maskaxdaadu intay ku haynaysaa xaggana waad ka akhriyaysaa xaggana way ka sii daynaysaa idan dabarkaaguna ha bato qalinkaaga iyo waraaqdaada iyo buuggaaga iyo kombiyuutarkaagu ha kula socdaan buug kastoo aad akhrido waxbaad ka faa'iido idaacadda markaad dhegaysataa baad wax ka faa'iidaysaa laakiin haddaad waxa qorto hadhow wuu ku anfacaya waad isticmaali karaysaa haddaad se tidhaahdo waan fahmay haddaad imika kitaab soo fadhiisato waad wada dhegaysato waad fahmaysaa laakiin bil kadib haddii lagu weydiiyo waxba ka garan maysid haddaad se idmaanu nadar samayso haddaad dib u akhrido oo eegtid oo baadhid oo dhigtid oo wuu kugu degayaa idan caqli badnidaada iyo faham badnidaada ha tala saaranin ee wax akhriskaaguna ha bato dadkana ha fudaydsanin oo dadkaad rabto inaad wax u sheegto waqtiga ha ka luminina waxaad isku daydaa inaad wax ku kordhin karayso inaad wax ku kordhin karaysaa macnaheedu waxay tahay aqsa maa ladayka min juhdin bixi marka hore waxaad awoodo ee baxtiya ee baadhisa ee madaanta taasi waxay ku baraysaa marka dambana inaad garato wax kastoo aad u baahan tahay madaanta culamadii hore xufaad bay ahaan jirtay culamadii dambe waxay yidhaahdaan madaanta yaqaaniin haddaad garanayso mas'aladu markay timaado halka aad ka baadhayso wallaahi fatxiga waa ku qorayd oo fi baabi kada buu kaga warramay minhaajkuna baabkaas uu kaga warramay ka waa fududay markiiba waad soo helaysaa qofka madaanta yaqaanaa waa shubhu xaafid waxaad garanaysaa mas'alo kastoo kuu timaada halkaad ku raajici walidaalika bay culamadu waxay dhahaan markaad wax akhrinayso laba mid uma la sameeyaa kitaab markaad akhrinayso ama jaldigiisa lagu tajriidiyaa kitaabka jaldigiisa waxa lagu qoraa masaa'ilkii kitaabka dhan uma wada baahnid kitaabkaada kastoo aad akhridaa waxa laga yaabaa macluumaad badan aad garanaysa inay ku jiraan laakiin waxa kaaga soo horbaxaya waxa ama kugu cusub ama taxqiiqa ama kuu faa'iideeyay waxaasi waxaad u baahan tahay kitaabka jaldigiisa lagu qoraa بيجي انتاس موضوع عينكاس وشيخو كاغا ورمaya بيجي انت موضوع عينكاس كاغا ورمaya markas too aad kitaabka jaldigiisa akhrido waxaad garanaysaa masaa'ilka adiga ku khuseeyo dhama waxay tahay ama se kitaab al-fawaid agtaada hayaalo sido kitaab al-fawaid kaaga sido mas'alo ku cusub ama fifaada cusub markaad heshaba meel gaar ah aad ku qorto ay ka gashaa jirto idan general knowledge ka waxay yiraahdaan al-macluumaat al-aamma ba badanaysaa وحشيق وحو كفي عي قفكو معلومات كيسا عامكي كو بدأي مركا معلومات كاقا عامكي بطو في كل المواضيع تصور باتكي هليس أرقا قرآن دي مركا وحويان استخفاف عقول الناس يريدون كل عين مركا ربطاننا وحشيقتان 40 هداد ديكي سكسو ديار قرو والله أعلم